السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغيارتا أصحابتا وجبوتي حسن عبدي وإذن كراسو هادلايو دالك مصر عاصمة قاهرة. دمان أصحابتا كحيران يوتيوب كيغا جبوتي حسن وإذن سلامي آدي آد أقوم حسنتين هيركا آد غارسيسين سبسكرابكا لاك شاير intaba waa mahadsantihiin dhammaan intaan haysto waa maasha Allah waa bilow fiican iyo meel markaas laga dhaqan karo dhiirigelina u baahan inkastoo aan wali la rabin meeshii la rabay inaan gaarin. Alayaartu waa idin salaamay. Muuqaalka maanta waxaan ka soo duubayaa xaafadda ama qolkayga jiifka. hadda sharaxaad kale ayaa laga gelin waa tabari intii gaarsiisay. marka alayaartu waa salaamantiin adduunka meel kasta oo ka joogtaan, intii habeen ay u tahay iyo intii maalin u tahay iyo intii door u tahay intii subax u tahay intaba Soomaali weyn waa idin salaamayaa. waa Jabuuti Xasan Cabdi oo markaasi aad kala socotiin YouTube-kiisa Jabuuti Xasan. أغيارتا إنكستو عودكي مرمر بدن أو aad u gaaban yahay haddana waa wali xagga qalabka ama farsamada kala lahaada. asxaabta waa mahadsantiin. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo horta dalkeeni Soomaaliya ilaahay horta nabadgeliyo iyo barwaaqo Allah noogu dhigo. xoogay waxaan aaladan Facebooka ama wararka isoo gargaarayo ay sheegayaan in wali xiisado iska taagtaagan siyaasadeed xiisadaas oo markaasi siyaastar madaxda dalka Soomaaliya waxaan muddaa 30 sano in ilbaxnimo iyo ay aragnimo aan wali laga qaadan wali khilaafkii iyo isku taagtaagii wali taagan tahay. marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in wadankan nabad Allah noogu dhigo, dawlad caadil oo fiican oo wadanka iyo dalka iyo dadka isku qabato oo maamushana in Ilaahay na siiyo qiyaarta. marka waxaan rabaa inaan ka hadlo horta dawladnimo maxay tahay. dawlad waa dadka shacabka oo isku tagay oo markaas nidaam sameystay ogolaaday in nidaamkaasi waxaas ay ku socdaan markaas ay dantoodana ay ku haystaan. furaha koobaad waa nabadgeliyo. nabadgelyadana waxay ka imaadaa bulshada dadka Soomaaliyeed. marka furaha labaadna waa xagga lacagta. marka anigu maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qiimaha ay leedahay lacagta. wadanka haduusan lacag lahayn inaysan nolosha iyo dawladnimada aysan qiimo lahayn. sidaad ka warhaysiin wadankeena burburkii kadib lacagtu way burburtay. hay'adana laftigeeda waxa waaye sida dadkii u barakaceen aydan u barakacday. markii ugu dambeysay aniga hadda wax yaraan moogahay 1000 shilin ka shaqeynayay oo aan markaasi sarif lahayn asaga u weyn asaga u yar. marka EVC ay jiro oo markaasi aaladan electroniga markaasi oo lacagta ah oo shirkadda Hormuud qayb weyn ka qaatay maqayl ka qaatay ayadana waa ku maasan tahay maadaama kaalintii dawladnimo la rabay ay booska ayada buuxisay. marka wadankan aan imaaday marka lacag fiican oo leeyahay oo markaasi oo sarif leh jajab leh wax kasta leh marka qiimo leh. lacagta waxay qiimo yeelataa marka ay sarif leedahay dadka ay qaadanayaan wadanka dawlad ay leedahay shacabka uu adeecsan yahay dawladooda markaas ay beelatahay. marka wadankan aniga waxaan ku arkay nidaam fiican aad iyo aad maasha Allah. India hadda ka hor aan tagayna sidoo kale aydan lacagteeda aad u fiicneed sarif ay leedahay kaaliska arag wax kasta aad gadan kartaa wax kasta ku soo noqonayo nolosha xoogay qiimo kula yeelanaysaa. hadda wadanka Masar lacagta markaas aan arkay mid ugu weyn waa lacag 2000 balki 200 aan afan 200 oo gini waa lacagtaas 200 oo gini waxay u dhigantaa marka adigu $10 iyo $2 u dhigantaa. waa 200 oo gini ama pound aliraada ama gini sidaas wadanka ama lacagta ku qoran tahay. 200 qiimo ahaan adigu $10 iyo $5 meelahaas waaye. saas leeyahay $4 meelahaas adigu halkii dollar waxaa lagu sarifaa
15.1 pound ayaa lagu sarifaa. marka waxaa soo xigto 100 guinea, 100 boqolkaas isagana waa 100 pound ama guinea ama pound labadaba ku qoran tahay. marka asagana waa adigu qiimo ahaan waa adigu $7 $6 iyo bar meelahaas waaye. waxaa ku sii xigo lacagtaas oo konton, asagana kontonka pound, kontonkaas ayaa ku xigo oo asna qiimo fiican leh. wax kasta ku gadanaysaa, baaqi leedahay, wax kasta leedahay, kaaliska arag maasha Allah, dhadhan nolosha leedahay markaas. waxaa kaloo ku xigo guinea, 20 guinea 20 pound oo lacagta Masar ah. asagana waa taas 20 waxaa ku sii xigo marka 10 guinea 10 guinea qiimo u leeyahay asagana fiican. waxyaabo badan ku shaahad ku cabi kartaa hadii saaxiibka meelo badan dhowr shaqo shaah ku cabi kartaan. waa kaas waa 10 guinea ama pound. waxaa ku sii xigo 5 guinea ama 5 pound. ayadana waa taas intaan arkay aniga. waxaa kaloo jiro lacag yar oo ayadana jajab ah oo shilin iyo xasaasa. ayadana waa taas shilina jiro. ilaa kuma sameeyay waa kaas no shilin, shilinkii waa kaas oo jajab ah. waa kaas baabuur lagu raacaa 2 shilin. waxbaa lagu gataa. wadankan waxaa aad lagu cunaa bahal yiraahdo ceesh oo markaasi sida muufada u sameeysan oo laakiin aad u macaan oo qamadi laga sameeyay. 1 shilin laga siinayaa, 2 shilin laga soo gato kafay. waxa waaye cuntadaada waa quraacdaada waa ku toostay. waa maasha Allah, waa wadan tabartiisa aad u horumariyay. marka ma ahan inaan wadankan amaanayo ama wadankan aan wadankayga aan caynayo ma ahan, laakiin dawladnimada waxay aad ugu fiican tahay marka ay lacag haysato, shacabkeedana ay lacag haystaan, sarif ay haystaan. taas ayaa markaasi wadanka iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dowladnimada qiimo u yeelay. marka wadankeena waxaa ka jiray 1 shilin oo markaasi isaga u yar isaga u weyn waa haystaa. waa kaas xasuusan u soo qaatay. xasuus lacag 5 shilin waaye oo markaasi aan soo jeebkayga ku soo iloobay markaan xamar ka soo baxay. marka waa kaas. marka dawlad kasta ay maadana wili lacag meel noo sameeyeen, wili kunkiyo dhamaada oo meeyda oo tabcaan ah oo markaasi sariir saaran markaasi la isticmaalaa. oo asaga laftiisa marka raqiis la diidayo oo la leeyahay intuu ka jeexan yahay, intuu saan ka yahay, waa kan faalso waayo doodiisa iska badan tahay. inkastoo lagu fakaday lacagta EFC-ga ee Hormuud noo sameysay. marka dawladda wadanka markaas Soomaaliya, wadankeena waxaan ka codsanaa markaas inay markii hadda dawladda soo socoto ama dawladdanba haddii ay awood u leedahay inay lacag noo sameyso, markaas dadka ay qiimo ku yeeshaan. marka waagii hore waa jiray lacag fiican waa jirtay oo shilin sida tan hadda sarifka oo midda hadda tan oo u jeedaan oo ayadana sarifka oo wadankan lacagteeda ah way noo jirtay 100 u badnaay. anaga 50 ku xigay, 20 ku xigtay, 10 sida 5 midaan camal ahayd oo poundka oo ama guinea Masar. marka waxaan leeyahay asxaabta waa taas. marka nolosha kale oo sida waxyaabaha kale sida lagu noolyahay ama dhaqanka ama waxyaabaha sida ay tahay insha Allah clip ku xiga ayaan soo duubi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa Jabuuti Xasan YouTube-kiisa oo idinka codsanay inaad subscribe iyo share iyo like intaba aad isku dartaan. caawin bay noo tahay iyo dhiirigelin insha Allah. waxaan hadda safarkayga mar dhow aan damacsanahay inaan meelaha taariikhiga aan ku tago, inkastoo hadda liiga sheekeeyay ninka la yiraahdo faasikii weynay ee shaydaanka ah ee Fircoon meeshii uu joogo, inaan asagana aan markaasi muuqaalo inaga soo duubo insha Allah haddii Allah idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.